ummadi marka ay doonayso inay horumar gaadho amba ay noloshooda wax ka bedilaan isbedelku waxa uu ka bilaabmaa hal shakhs taas waxa tusaale u ah nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam gaaladu maanta ayay gaadhay waxay yiraahdaan leaders in order to be a leader you have to be a reader inaad hogaamiye wanaagsan noqoto waa inaad horta wax akhridaa maanta cid walba oo wax hogaaminaysa waxa ummadda lagu hogaamiyo waa aqoon cid wax hogaamisa waxa ugu wanaagsan oo ugu inaga inoo tusaale ah nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam nabigeena maxamed baxa lama oran اقرأ بالله هرتا اقرأ باسم ربك الذي خلق وإن أدوح آخرته so reading it is something which is an obligatory وواجب سنة ما إن وحلا آخره سنة ما وواجب إن وحلا آخره so if you are not a reader you cannot be a leader haddii aanad wax akhrinin ummad wax uma sheegi kartid ummadna ma soo hogaamin kartid marka far walba ta carabiga oo midigta u qoranta iyo ta ingiriisiga oo bidixda ka soo qoranta bidix iyo midig dhanka doontidba maro you have to be a reader waa inaad noqotaa qof wax akhriya horta intaas waa iga dardaaran ta kale waxaa jira buug la yiraahdo The 7 Habits of the Most Successful People toddoba astaamood oo ay leeyihiin nolosha adduunka dadka guusha ka gaadhay kow astaanta koowaad maxay tahay hadaba waxa weeye we have to be proactive not active we have to be proactive waxa la yidhi tukow waxa la yidhi xun shay goormaad wax dareentaa waxay tiri markuu dhagax igu dhaco midna igu soo socdo waxa la yidhi tukow adna goormaad wax dareentaa wixii markay laba nin is eegaan dareenka tukaha inaynu yeelano horta waa iga dardaaran oo dhibaatadu wixii dhibaatadu intay soo dhowday soo dhabacaan ay soo dhowdaan lama dhagaysadeen waxa inaad dhabu dareentaa ha ka dhuumanina waa inaad sii ogaataa dhibaatadu inta ayna kugu dhicinay soo fooleeday waa inaad ogaataa waa ta koowaad waa ta labaad begin with the end mind shaqada aad qabanaysaa barbilowgeeda ilaa bardhamaadkeedu halka uu yahay waa inaad aqoonteedii iyo xirfadeedii iyo rabitaankeedii aad yeelataa haddii kale wuxuu yidhi marka aanad hamoon timacada wuxuu yidhi marka aanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed xaggee loo socdaa garan maayo mid unbaa soo dhaqaaqa yidhi hoolkan iska kaalaya unbaa layidhi ummadda haddaynaan wax ku kordhinaynin oo hadafka laysugu yimi aynaan ka midaysnayn way adag tahay sida guul loo gaadha marka yoolka aad ku socoto waa inaad yeelataa saddex we have to put foresting forest maxay tiraa dhacamo geel siday u kala horeeyaan baa loo kala guraa soo ma xaajadu waa inaad taladu siday u kala horeyso ee shaqada loo kala horqabanayo iyo go'aanka aad qaadanayso aad u gogol xaari taqaana xoolaha qura looma sahamiyo hadalka xitaa waa loo sahamiyaa wixii timacada markaan sahamiyaaban halkii sayr la mariya aan idinka yara qosliyo waxa nin bay naagtiisii hinaasta saytir wariyaha haddaan dhinta maad guursan hadduu haa yidhaa kabbaa ku dhici amba girgire ilan dhimashadaydun baad sugaysay baa la meesha taale xariif buu ahaayo wuxuu yidhi xaaji haddaad dhimato waan waalan say tiri haddaad waalata maad guursan suu yidhi nin waalan wax kasta ka filo means waxaan ka wadaa go'aanka aynu qaadinayno anoo gudoomiye iyo anoo sheekha iyo anoo suldaana yeelay uun ma ahee waa inaad go'aankaaga sababayn kartaa reasonable sababta aad u leedahay go'aanka aad u qaadanayso waa inaad sababayn kartaa ta kale we have to think win-win wax anna iidana ummadana u dana deegaankana u dana waa inaan ka shaqeeya horta danta guud wuxuu yidhi danta guud dubaha lagu dhuftay iyo dakharadii gaadhay waar ka daaya weli maanan maqaldumiya mooyaane soomaaliya waxay geesi u taqaanaa ninka dilka iyo dhaca iyo dhiigga ummadda caadaystay waa xaaraan ninna horumar kuma gaadhi kara hilib walaalkay on dilay waa i walaal la'aana guulma we have to believe that taa waa inaynu aaminaa if iyo aakhiro dhiig ibna aadan midna lagu liibaani maayo
we have to think laakiin danteena inaynu ka shaqaynay waa hawl inaga inoo taala ta kale synergizer waxay tiraa Soomaalidu farquri fool ma maydho teamwork waxay tiraa rag iyo hangoolba waa la ururiya marun baa loo baahdaa ibn aadanka ilaahay baa karaameeyay ka rabnaa ibn aadan baa cid walba ku jirta cid walba ilaahay baa qadaray cid walba ilaahay baa sharfay cidna cid sharafteeda ibn aadannimo ugama daba fadhido kana laandheera kana laangaaba kana war ummadda yaan la tafaariikhaynin jilibkan ma nihin suxulkanaynu nahay quraantanaynu nahay ilaahu hana tafaariikhaynin jumlad ahaan ibn aadantinimo waa inay inoo taagnaataa ibn aadantinimo waa inay inoo taagnaanaa innaga go'aankeenu meel sare oo meeqaam sare ah basasha marka la diiro aakhirka waxa loo tagaa qaybaan la cunin sooma ummadan haddaad dhisho waxaad u tegi cidaan ku anficin I'm telling you the truth marka duuduub waa inaynu ummadeenna ku qasbanaa ta kale we have to be a listener qof wax dhagaysta oo wax hubsada oo aan go'aanka iyo talada la degdegin waa inaad noqotaa waxay tiraa ruuxa gabaygii tala waxay hagaagtaa markii la hojiyaa wiig marka dad la iska dilo Soomaalidu waxay tiraa waagu haynoo bariyo bil amba 15 cisha la qabsada laba sababood labadaba way tahay qolada wax dishay waa inay magti u soo diyaar garowdo bixinteeda qolada wax laga degayna waa inay yara qabowday degto marka arrintu meel sax ay ku saxmaysaa laakiin haddaad tiraa qabuurta dusheedii baan magta geyn adna waa lagugu dari so we have to be what and knowledgeable what we are doing waxa aynu qabanayno waa inaynu aqoonteedii iyo xirbadeedii nahanaa ta kale khalad uu dhici wax kastaana uu dhici wax walbana way nala soo kulmi waa inaynu duuduub ku liqnaa daxalka laabteena xumaanta iyo waxa inagu jira waa inaynu ummadda iska cafinaa oo aynaan cuqdad isu haynin oo aynu ilaahay baa qadaray kaga gudubnaa dhibaatooyinka iyo maaragtay hadba jaranjarooyinka inala soo dirta ta kale waxa iga dardaarana inaynu iska jirno gaaladu waxa ay yidhaahdaan self defeating beliefs inuu qofku isagu iska guulaysto anigu qof dadka ila yaabi haddaan taa yeelo qof nasiib lama ihi wallaahi mar baan isku dayay oo taan kala kulmay hanuunbaa baabacadaati makaday fear change inaad isbeddelka laftiisa ka baqdo dadka waan ka hooseeyaa cidna cid kama hooseyso ibn aadantinimo cid waliba way siman tahay marka waxa weeye wuxuu ninku yidhi sinaan mayno hadraawi adna buri sarrayntiisa sadka waad wanaagtahay marka waxa iga dardaarano kow waxa aan doonayaa inaan idhaahdo adeerow qayrkeen dayuuxuu fuulay innagu geed fuul xiitaa iskuma inaadeen haddaynu soomaalina wuxuu yidhi quruumaadkan laga qayliyey ee qaaq wax kaga siiyey nin waliba mar buu qaadan jiray qaansa iyo leeb qarfa iyo mar buu seexan jiray qalanqal hoostii ha yeeshee quluub wada jirta ayaa qaniya sheekhow qalbigaa laga wadaalmo horumarku waxa uu ka yimaadaa biqalbi saliim qalbiga wanaagsan haddii uuna qalbi wanaagsani inagu jirin if iyo aakhiro midna ku liibaani mayno ee taa ku talagala cidayna cid fartaha ku fiiqin ee adigu gudahaaga dib isugu noqo heblaayo amba hebelow dhib baad qabtaa markaan leeyahay farta cid ku fiiqayo saddex farood anigay dhankayga u soo jeeda in badan inaan anigu dhankayga ishubsado ayay fartayda iyo tilmaantayduba sheegaysa marka waxa iga dardaarana wuxuu yidhi cirka nimanka sahanka u diray ee caadka ka hayaamay adceedda iyo dayaxa dowladahan caawa kala sheegtay caynkeenna soo wada maray iyo caado liiti ah cilmigay ku gaadheen rag waa ku cibro qaataya carfu wuxuu ka muuqdaa shacbiga caafimaad qaba horumarku wuxuu ka yimaadaa gudahaagoo wanaagsanaada ee meel kale kama yimaado ree hebel baa naga haysta jilibkana la kari laayahay ree sogsog iyaga hadalkooda daa qurac iyo galool meel laga maray ma jirto waqtigeenna yaynaan ku limin cayda suuqyada cimrigeenna haddaynu ku dhammaysano
cid wax ka sheegidun guul gaari mayno marka walaalayaal waxaan ku soo koobaya hadalkaygii dhammaanteen ilaahay qalbiga haynoo nuuriyo ilaahay midnimada haynoo xoojiyo ilaahay walaaltinimada haynoo xoojiyo dhammaanteen qayb walba inaga aadan inaynu cid walba qayb baa kaga aadan inay qaybteeda ka soo baxdo way ka dardaaran